السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خراب ujeedin maanta waxaan ka calamiiteynaa xabadka qaybta sare ee xabadka ama chestiga. sidoo kale waxaan isku dayaa inaan kontrolo miisaanka aan wado si muruqyada shaqada loogu talagalay ay u qabtaan. sidoo kale mid walba oo aan sameynayo waxaan ku sameynayaa 4 jeer waxaan sameynayaa laba jeer oo min 12 ah iyo labada dambe oo 10 ah. haddaad awoodid ka badana way ka sii wanaagsan tahay. isku day miisaanka markaana waxaan bilaabayaa qaybta dhexe ee xabadka. waxaan ku darmayaa mar walba oo aad sameynaysid miisaanka awoodid inaad isku daydo inaad kontroshid murqahana shaqada loogu talagalay si ay u qabtaan si slowly ah u samee. mid walba oo sameynaa sida hore in ku sheegay waxaan hadda kan sameynayaa 4 jeer oo labada ugu horeysa waa min 15 labada kale ku xigtan laba jeerna waxaan sameynaa 12 labada ugu horeysa 15 12 isku day in hadda si wanaagsan ayaan shaqadeena u qabanaynaa. murqaha shaqada loogu talagalana way ay qabanayaan. waxaan rajeynayaa inkana sidaas oo kale inaad sameysiin si slowly ah inaad u sameyso mar walba. hadda waxaan bilaabeynaa xabadka dambalka ayaan use gareeynaa. low chestigana waa sameynaa ama qaybta dambe ee xabadka qaybta hoose ee xabadka. waxaan isku dayaa mar walba si miisaankeena kontrolo awoodeedana aan ku isticmaalo si wanaagsan si murqaha shaqada loogu talagalay oo qabtaan. idinkana waxaan kula dardaarmayaa sidaas oo kale mar walba aqaadis birtina kontroshid si xabadkaaga ama murqahaaga u qabtaan shaqadii loogu talagalay. hadda waa kan si slowly ayaan u sameynayaa. okay, kanna waa sidoo kale waa qaybta dhexe ee xabadka. waxaa ku jira wax yar oo up chest ah laakiin muhiimadda waa inaad miisaanka aad kontroshaa mar waliba aad qaadaysid. waa in miisaankaaga ee gacmahaada ay kontrolaan si exactly aad ugu qaadid muruqyo loogu talagalana ay qabsadaan shaqadooda si slowly ah adiga oo kontrolaya mar walba isku day inaad miisaanka sax. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxa aan sameynayaa hadda cardio sida wada ognahay 4 qayb ayaan kasoo sameeyay xabadka. hadda inta waxaan ku sameynaa wax yar oo caloosha ah, lugaha iyo gacmaha. sidoo kale waxaa ku jiro push up ku jiro. waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iideysan doontiin inkoo guriga joogtiin sameeyaa ilaa. assalaamu calaykum. hadda waxaan bilaabeynaa waa inaan cardio-kan bilaabay oo sameynayaa kan hadda aan sameynayo muhiim ayuu yahay waa boodigo idil jirko idil waay. sidoo kale mar walba aad sameynaysid inaad isku daydid si wanaagsan inaad u dhaxdid waayo sababtay mar walba aad boodaysid miisaanka jilbahaaga ku dhacaya. waxaa wanaagsan inaad mar walba kontroshid qaabka u dhehaysid. sidoo kale kan mar walba haddaa badsatid waxaa waa miisaankaadan hoos u dhacaya jirkaagana fedka wuu ka baxaya aadun u wanaagsan yahay. mar walba oo aan training aniga aan soo sameeyo oo gymka aan galo oo birarka aan soo qaado sidaan oo kale waa sameeyaa anoona duubeynin ayaa sameeya si nafteyda aan uga faa'iideeyo waqtigeyga. sidoo kale biyaha aad buu muhiim u yahay. wuxuu muhiim u yahay caafimaadkaaga sidoo kale jirkaaga dhan uu ku nadiifinayaa. marka isku day mar walba biyaha inaad cabtid. hadda waxaan bilaabayaa qaybta dambe ee dhabarka iyo push up oo isla socdo. okay, sideen u dhahayaa fiirso marka. waxaan bilaabayaa inaan qaybta dhabarka dambe dhaho kadibna aan push up dhaho. muhiim waaye laga yaabaa inay kugu cusub tahay inaad saan sameysid ama laga yaabaa inay kugu adag tahay ama inaad hore u aragtaa laga yaabaa. adi mar walba isku day inaad miisaankaadana aad kontroshid sidoo kale si exactly aad u tiraahdid qaabka aad u dhehaysid. waa muhiim mar walba inaad iska saxdid sababtay waxa aad sameynaysid aad qalad u sameysid waqtiga aad use gareynayso dhan meel cilaayo kaaga baxaya. marka anigana mar walba waa aan sameeyaa oo aan jecelahay inaan miisaankii ama awoodeyda kaliya mar walba aan use gareeyo si ugu fudud. hadda waxaan bilaabayaa push up. isdiyaari push up inaad dhahdid. push up-ka waa muhiim. sidoo kale push up wuxuu u wanaagsan yahay kaliya ma ahan xabadka oo kaliya inaad ka alimiiteynaysid. wuxuu sameynayaa push up-ka xabadka qaybta dambe ee murqaha tricepsiga la dhaho sidoo kale dhabarka shoulder-ka intaasoo idil uu ka caawinaya. markaa badsatid push up-ka waxaa yeelanaysaa form aad u qurux badan ama xabad ama dhabar ama shoulder ama triceps aad u qurux badan. marka isku day mar walba. okay,
hadda waxaan bilaabaa qaybta dambe oo dhabarka oo keliya inaan sameeyo. Qaybta dambe ee dhabarka oo keliya inaan sameeyo ayaan isku dayayaa. Idinkana saas ayaa idinka baahan dhahdiin. Saas inaad dhabarka lugaha wax yar u qaadid, dhabarkana wax yar u qaadid. Okay, isku day mar walbaba inaad biyaha cabtid. Biyaha muhiim u yahay sida hore idinku sheegay. Aniga mar walba waxaan jeclahay markaan use gareyna biyo cabo mar walbaba. Marka isku day ininkana saas ayaan kula dardaarmaa inaad biyo cabtiin. Qaybtan waxay qaabilsan tahay low body waaye. Low body waaye wuxuu qaabilsan yahay qaybta dambe dhabarka, sidoo kale lugaha qaybta dambe ilaa dabada. Marka miisaanka aad buu u fudud yahay runtii, waa 14 kiilo ma culuso. Marka adiga mid culus waa aad qaadan kartaa, laakiin aniga waxa aan ku sameeyaa mid aad u fudud. Sababtoo jirkeyga almost waan soo use garay energy-ga dhammaan oo jirkeyga ku jiray. Hadda energy badan haysto, miisaanka culus waa aad qaadi kartaa. Marka mar walba isku day dhabarkaaga inaad control-shid qaybta aad ka dhigaysid. Sababtoo waa muhiim. Marka isku day mar walba. Hadda waxaan bilaabaa qaybta dambe ee lugaha. Miisaan la'aan anigu miisaan la'aan ah. Marka isku day inaad sidaan oo kale u tiraadid lugaha qaybta dambe. Mar walba aad qolka soo gasho ama kaliga aad sameynayso waxaa fiican inaad miisaankaada aad isticmaashid soo kuugu fudaado boodigaagana oo boodi qurux badan oo awood leh uu noqdo. Marka mar walba waxaan kugula dardaarmayaa adigana sidaan oo kale inaad sameysid. Marka hadda waxaan bilaabayaa caloosha, qaybta sare ee caloosha ayaan bilaabayaa. Idinkana waxaan leeyahay isku day inaad sameysiin. Mar walba oo aan sameynayo qayb walba oo aan sameynayana mar walba waxaan isku dayaa inaan sameeyo 4 jeer, 12 jeer, 10 jeer ayaan isku dayaa mar walba inaan sameeyo. Idinkana waxaan ku waanaa sidaas kale inaad sameysin. Hadda waa dhameeyay qaybta sare, waxaan bilaabaa qaybta hoose asaga inaan sameeyo isku dayaya. Okay, waan wada sameeynaa dhammaanteena. Idinkana waxaan leeyahay ka faa'iideysi wanaagsan sidaan kale u sameeya. Waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iideysan doontiin dhammaantiina. Gurigiina idinkoo joogtiin ku calaamiteeya, inagoo gym ku joogtiin ku calaamiteeya. Waa walaalkiin Qays in leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.